galaydh ee ciidamada daraawiishta Puntland gaashaanle Daahir Axmed Maxamed oo shir saxaafadeed ku qabtay magaalada Boosaaso ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamay ciidamo ka tirsan daraawiishta Puntland oo la sheegay inay u wareegeen taliska BSF. waxaan rabaa inaan halkaan ka cadeeyo propaganda iyo mataqaanaa warar baraha bulshada la soo gelinayo inaysan ka jirin wax ka jira inaysan jirin wararkaas oo ahaa inay ururka Galayr uu ka soo goosteen ciidamo oo ay ka soo galeen xarunta ciidanka BSF. waxaan rabaa inaan u cadeeyo bulshada iyo wixii wax garanaya inaysan jirin ciidanka ururka Galayr iyo sidoo kale ururka Gamaadiid ciidan ka soo goostay oo mataqaanaa u soo galay nimanka xilka laga qaaday inaysan jirin. ciidamadu waa ciidamada dib u dhis lagu sameeyay, waa ciidamada tababar la geliyay, waa ciidamada hab kasta oo ciidan lahaa loo dhameystiray, waa ciidan baahidiisa la ilaashay, waa ciidan macnaha wax walba oo sharciya mataqaanaa loo dhameystiray. waxaan rabaa halkaan inaan ka cadeeyo inaysan jirin ciidan si sharciya ugu jira foolibaagooyinka dawladda oo galay ama goostay ama macnaha meel xun maray inaysan jirin. waxaan rabaa inaan u cadeeyo labada nin oo mataqaanaa laga hadliyay waxay ahaayeen niman laga saaray ciidanka ururka Galayr oo mataqaanaa sifa sharciya looga saaray. ninka la yiraahdo ninka hadlay oo la yiraahdo cali Saleebaan wuxuu ahaa kuuga ciidanka musuqmaasuq uu geliyay raashinka uu ciidanka u karinayay ayaanu ku soo xirnay maxkamadda ciidankaana macnaha mataqaanaa sifa sharciya ku ruqsaysay dukumiintigiisii iyo mataqaanaa cadayntiisiina waanu u cadaynaynaa ummadda. ninka kale oo la yiraahdo Cabdiqani Xudumey waxa weeyaan asagana sifa sharciya looga saaray ciidanka Puntland looba ogara waxa Ilaahay xaaraantinimeeyay oo ah draagis sida khamrida, xashiishka, kaniinka, maandooriyaha midna looba ogolayna isticmaalaa. ninkaas wuxuu isticmaalay oo ciidanku dhex isticmaalay draagis sida khamrida oo kale waanu soo qabanay oo waanu xirnay maxkamadda ciidamada qalabka sidaana sifa sharciya ku ruqsaysay. waxa weeyaan ayagiiba waxa laga soo qabtay suuqa haddii ciidankii BSF laga bixiyay tuutihii lagu yaqaanay oo mataqaanaa bulshadu ay ku taqaanay ama astaanta u ahaa inta laga baxshay oo tuuto madow loo gashay ayaa macnaha nimankaas mataqaanaa la ruqseeyay ayaa waxa la sameeyay in ummadda lagu qalqalgeliyo yey ka galaan yeesa u galaan. su'aasha meesha taala waxa weeyaan yey ka galayaan yeesa u galaan. dawladdu taliyada ciidanka BSF bay waxay ka qaaday mataqaanaa xilki ka qaaday waxaana waajiba inuu wareejiyo oo sifa sharciya ku wareejiyo taana dawladda u taala. cid macnaha mataqaanaa annaga aan si khaldan u isticmaalayno iyo si mataqaanaa waxay sheegeen inay maamul darro iyo mataqaanaa la yiri weerara. ciidanka Puntland wuxuu u diyaarsan yahay wax walba oo jiritaanka Puntland ka hor imaanaya, wax walba oo quruxda Puntland ka hor imaanaya, wax walba oo ammaanka Puntland ka hor imaanaya inay sifa sharciya kaga hortagaan. waxa weeyaan ciidanka Puntland intuu dhisan yahay oo sifa sharciya u dhisan yahay cid macnaha qalqal gelin ka dha shacabka, cid macnaha dawladnimada gelin ka dha, cid bilicda Puntland qalqal gelin ka dha ma jirto. cidii gelisana tilaabo cad bay ka bixinayaan. waxaan rabaa inaysan mataqaanaa bulshada mar labaad mar saddexaad macnaha mataqaanaa aan u cadeeyo inaysan jirin propagandadaas. ummaddu waa ogtahay maxkamadda ciidamada qalabka sidaa laga helayaa cadayntoodii baanu keenaynaa. waxa ku kalifi kara dad maandooriyaa inay dhala ka soo hadliyaan oo bulshada u soo bandhigaan ma garanayo anigu wax ku kalifaya. insha Allah ilaahay waxaan ka rajaynayaa inay khayr ku dhamaato. waxaan kaloo rabaa halkaan inaan uga mahad celiyo ciidamada BSF oo mataqaanaa sharafta leh qaatay amaamiirta dawladda amarka agaasimaha cusub General ninka la jiray Aamin Xaaji Khayr oo uu hogaaminayo Cornel Fandul qaatay amarkii agaasimaha ee hadda shaqeynaya ee agaasimihii cusbaa la shaqeynaya ee mataqaanaa iska diiday mataqaanaa amarka agaasimihii hore oo xilka laga qaaday. waan u hambaleynayaa, waan u mahad celinayaa. waa midii nolol dhaarshay waa macnaha mataqaanaa ciidanka Puntland meel kasta ay jiraan waa isku sharci. waxaa nolol dhaarshaa
oo mataqaanaa awaliba nala ku dhaarsha inaan dalka iyo diinta aan u shaqaynayno iyo dadka mataqaanaa maatada iyo mataqaanaa wax walba oo wanaagooda inaan ka shaqayno aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa tallaabada ay qaadeen taliye waa soo baxay iyo waa socday iyo waa amar diiday waxaan ahayn ma shaqaynayaan wax hal kale ma la waayay walaalow mataqaanaa dawladdu amar bay bixisaa dawladdu mataqaanaa cidna kama amar diidi karo haddii la amar diidayo dee dawladnimo ma jidheen dawladdu amar bay bixisaa ciddii mataqaanaa surtaag jeegtana sharcigaa la hor keenaa ma jidho waxa la oran karo waa amar diida maba la amar diidi karaba dawladnimaa shaqaynaysa dalku madaxweynuu leeyahay sharciyad buu leeyahay dastuur buu leeyahay cid amar diidi kadhaa ma jidho macnaha muxuu noqonayaa halka ugu dambeeya haddii hawshaan ku socoto wax umaanayaa ma jiraan nimanbaa macnaha mataqaanaa kursi isjacayl iyo mataqaanaa waxa ay meesha ay ku haysteen ku diiday amarkii madaxweynaha oo looga qaaday xilka mana amar diidi karaana caqligooda ay tusay waxaana weeyaan waxaa la marin doonaa cawaaqibka ay leeyihiin haddaysan ka tamaasulin oo mataqaanaa aysan amaamiirta dawladda ay mataqaanaa inay hoggaansamaan ba aad u wanaagsan waa Soomaali General ciidamada iyo hoggaanka galayr waxa ka mid ah ciidamada magaalada u soo galay xaaladda hadda ka taagan Boosaaso ciidamada galayr awalba waa joogeen Puntland ama gobolka Bari waa ciidanka qaybta gobolka Bari ka tirsan gobolka Barina waxay ila tahay inuu soo gobolka ahayn waa midkaan aan ku sugannahay inuu yahay wax soo galay oo aan mataqaanaa socdaala oo aan ku nimid ma jiraan awalba waan ka shaqaynaynay dadka shacabka aan u shaqaynaynay waxaanu ka hortaagnay argagixisada iyo cid kasta oo mataqaanaa si khaldan u soconaysay waxay tahay in macnaha ciidamadu ay ilaalsadaan dalkooda inay ilaalsadaan sharaftooda inay ilaalsadaan mataqaanaa ummadooda Soomaaliyeed meel kasta ay jiraan gaar ahaan dadka Puntland waxay ku hurdaan waayaga sharafta ay ku labisanayaan waayaga sharafta ciyaalkooda ardayda ku aadayaan macnaha mataqaanaa dugsiyada ama jaamacadaha waayaga waxaan leeyahay oo fariintan u diray ciidanka Puntland waxay tahay inaan u qubno dhididkeena iyo dhiigeennaba dadka Puntland sidoo horumar sharaf kalsooni ugu gaari lahaa Faadmo Degan Daahir warbaahinta Daljir Boosaaso adeega mareeg sweep account ee bangiga Salaam waa adeeg hal akoon oo guud kugu xiraya akoono kala duwan waxa uu ku suurtagelinayaa lacagta akoomada hoose ku dhacday inay si toos ah ugu wareegto akoonka guud adigoo aan wareejin markii ay gaarto xadkii ama xilliga aad u dooratay